xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta ka jawaabtay eedeymo maalintii shalay uga yimid boqor Buurmadow kaasoo xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland uu ku dhaliilay deeqihii waxbarasho ee dalka Itoobiya oo ay sheegtay inay si gaar ah koota ugu xidhay ardayda wax ka barta dugsiyada dawliga isagoo meeshana ka saaray jiritaanka jaamacadaha dawliga ee dalka. wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Ismaan Jaamac Aadan oo warbaahinta qaarkood kula hadlay maanta magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in boqor Buurmadow aanu shaqo ku lahayn waxyaabaha ama arrimaha khuseeya waxbarashada isla markaasina uuna ka hadli karin arrimaha waxbarashada. Buurmadow waxbarashada lagu ka soo gala private-na uma ogi aanu inuu private leeyahay uma ogi wasaaradana kama shaqeeyo meel ka soo gala garan maayo hadduu shicib ahaan ku soo galayo wadani ahaan ku soo galayo waa halkeeda ka hadlo ha soo barto marka hore xeerka qaranka ee waxbarashada iyo xeer nidaamyaha iyo waxa la isku hayo. isagoo hadalkiisii wata wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Ismaan Jaamac Aadan ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay kulan uu maanta la qaatay guddiga joogtada ee golaha guurta Soomaaliland waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen khilaaf muddooyinkii u dambeeyay ka dhaxeeyay wasaaradda iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay oo salka ku hayay habka ay u bixiyeen deeqa waxbarasho oo Soomaaliland heshay iyo sidoo kale nidaamka waxbarasho ay isku maandhaafsanaayeen muddooyinkii u dambeeyay wasaaradda iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay. cabashada imika halkan ay keeneen ugu horeysay kaliya wax la iga weydiiyay waxay ahayd aan idin faahfaahiyaba iskuuladii private-ka waxay ka cabanayaan scholarship la siiyay wasaaradda oo private-ka laga qadiyay taa iyo ta idinka ka warhaysan ay suuqa la wareegayaan waa kala laba dacwad midka kaliya ee cabashada kaliya ay soo gaarsiiyeen guurtida wuxuu ahaa iskuul waxbarashadii leynasiye wana laga qadiyay waxbarashadaasi waxa ogtihiin weligood bay way ku dhuuqayeen oo way haysteen Suudaan baa ay u diraan Turkiga ay u diraan Carabta ay u diraan Masar bay u diraan 20 sano ugu dambeeyay scholarship way helayeen mid kaliya private public ay siiyeen ma jiro xeer qaranka u yaalo oo qaranku dhigtay lagama gorgortamo lagamana galo heshiis iyo aynu saan sameeyay waa laga galay oo markii xeerkan la sameeyay baarlamankan baa baasgareeyay ma wuxuu baarlamanku baasgareeyay baan anagu ka gala gorgortan ka gala odleeda gorgortan ka gal ma soconayso.